السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا لها قالقة كسو هذا دوع channel ويرحنوا سدايانتن أنيقو أول بحباب لها هادا نعودكي عاجسكا يسلبت لي. الحمد لله هادا وان في عنادي انت حنونسان إلهي عافيو انت مراد لنا إلهي هأسهلو مراد كوذا وان معسيهين. maanta waxaan ka hadlaynaa ducooyinka la akhristo salaatuleylka qaybtii labaad. Horey waan uga soo hadlay, kani waa cashirkii labaad ee ku saabsan qiyaamka iyo ducooyinka la akhristo. Ducooyinkan waa ducooyin Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay qofkii akhrista kadibna Alle wax weydiisto inuu Ilaahay siin doono wixii uu weydiistay. waxaa marka isku aadinay xilli aqbal ah oo Alle uu imaanayo samadan dhow ee adduunka iyo duco uu Nabiga sallallahu alayhi wasallam sheegay. waxa kaliya ka dhiman waa inaad aaminto inuu Ilaahay ku siin doono wixii aad xilliyadaas u soo kacday ee weydiisatay. ducooyinka maanta aan baranayno waa 5 mid kasta oo ka midna horay ayaan muuqaal uga soo sameeyay oo aan qoraalkeeda u soo dhigay. asxaabtii horay ugu sii xirneed channelkayga way garanayaan dhammaan ducooyinkan. walaalaha igu cusubna waxaan filayaa inay hadda ka faa'iideysan doonaan oo qoraal ahaan ayaan u soo dhigi doonaa qaybta commentiga. ducooyinkana waa kuwo iska fudfudud oo ma ahan kuwo barashadooda lagu dhibtoonayo. ducada ugu horeysa Sacad ibn Waqaas Ilaahay ka raali noqday oo maalin socda ayaa wuxuu arkay Cuthmaan. markaas ayuu ku yiri assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Cuthmaan salaantii kama uusan qaadin. mar kale ayuu Sacad ku celiyay oo haddana uu salaamay laakiin lagama qaadin. intaas kadib Sacad wuxuu aaday Umar ibn Khadaab oo ahaa amiirkii muslimiinta. markaas ayuu wuxuu ku yiri waxaan salaamay walaalkay Cuthmaan, salaantiina igama uusan qaadin. Umar qof ayuu u diray si loogu soo yeero Cuthmaan. Cuthmaan ayaa imaaday meeshii laga wacay oo ay isla joogaan Sacad iyo Umar. markaas ayaa waxaa lagu yiri maxaa kugu dhacay oo walaalka salaanta aad uga qaadi weyday? Cuthmaan wuxuu u yiri la ima salaamin. Sacad ayaa ku yiri waan ku salaamay markaad meeshaas joogtay, weliba intaasoo jeer ayaan kugu soo celiyay salaantina igama aad qaadin. Cuthmaan wuxuu yiri ma xasuusto amaadan islaamin. maya waan ku salaamay ayuu ku yiri. kadib ayuu wuxuu soo xasuustay in waqtigaas aysan maskaxdiisa joogin oo uu ahaa mid aad u mashquulsan. Cuthmaan wuxuu yiri waxaan ka fikirayay duco maalin annagoo la fadhina rasuulkii Alle sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu yiri Ilaahay ayaan ku dhaartay waxaa jirto duco haddii uu qof ku duceysto uu siinayo wixii uu rabo. Nabiga oo ducadii noo sheegi rabo sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa imaaday nin reer miyi ah. kadibna Nabiga ayuu ninkii wax weydiiyay. markii loo sharaxay wixii uu u baahnaa ninkii reer miyiga ahaa, Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu aaday gurigiisii asagoo ducadii aan noo sheegin. marka wuxuu yiri ducadaas ayaan ka fikirayay, haddii maanta aan xasuusnaan lahaana aad ayaan ugu baahnaa. intaas kadib Sacad ayaa waxa uu ku yiri ducadaas aniga ayaa aqaano. dadkii meesha joogay ayaan ka mid ahaa. markii ninkii reer miyiga ahaa loo sharaxay wixii uu rabay oo Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu gurigiisa aaday, ayaan aniga ka daba tagay. waxaana ku iri rasuul Allow noo sheeg ducadii aad ku dhaaratay qofkii ku duceysta inuu Ilaahay siinayo wixii uu weydiisto. wuxuuna ii sheegay Nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ducada waxay ahayd لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ducada waa ducadaas. sidoo kale ducadan waa duco quraanka ku jirto oo qiso wadato. waa ducadii lagu badbaadiyay nabigii uu nibiriga laqay. waa duco aqbal ah. isla quraanka dhexdiisa ayuu Alle ku yiri waxaan ku badbaadinay nabiga, waxaa kaloon ku badbaadinaynaa qof kasta oo mu'min ah oo ducadan akhristo. waana duco qofkii akhrista Alle uu siin doono wixii uu weydiistay mar haddii uu Nabiga sallallahu alayhi wasallam sheegay quraankana ay ku jirto qiso qurux badan wadato. ducadaas waa duco laga rabo inaad ku celceliso xilliga salaatuleylka. Cuthmaan waxa uu ka mid yahay 10kii saxaabi ee iyagoo nool jannada loogu bishaareeyay. haddana waa mid ka mid ah khulafaa raashidiin.
marka Cuthmaan uu duco raadinayo waxaad ogaanaysaa qiimaha ay ducadu leedahay. qofka ama culumaha ahaado ama caamaha ahaado, marba haddii uu muslim yahay wuu u baahan yahay inuu Ilaahay baryo si aakhirana uu janno u helo amuuraha adduunna lagugu hagaajiyo. inaad ducaysato kama maarmaysid. marka ducadan waa duco aad u qiimo badan, waa ducada ay asxaabtii waaweyneed sidaas u raadinaysay, waa duco uu nabiga sheegay, waa duco qur-aanka ku jirto. lambarka labaad waxaad dhahaysaa yaa dal jalaali wal ikraam, ilaahiga weyninka iyo sharaf oo dhan lahaayo. nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa maalin maqlay nin ku celcelinayo yaa dal jalaali wal ikraam. markaas ayuu intuu u tagay ayuu ku yiri waa laguu jawaabay ee waxaad rabto weydiiso Ilaahay. habeenka xiliyadiisa dambe marka waqtiga aad ducaysanayso ku dar magacan oo Ilaahay ugu wac, ku dheh yaa dal jalaali wal ikraam, kadibna weydiiso wixii aad rabtay, alle waa uu ku siin doonaa biidnillaahi albaari. lambarka saddexaad waa magac kale oo asagana ah ismullaahi alacdam. waxaad dhahaysaa yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astaqiis. waa duco uu nabiga sallallahu calayhi wasallam ku ducaysan jiray markasta uu culays dareemo. ducanimadeeda markii laga soo tagana waxaa ku jiro magacyo alle oo waaweyn. magacan yaa xayu yaa qayuum waxay dhahaan culummada haddii uu qof intuu gacmaha taago keligood ku celceliyo asagoon wax kale ku ducaysanin ama wax kaleba aan sheeganin, Ilaahay wuxuu siiyaa qofkaas muraadkiisa. ileen alle waa mid garanaya waxa aad u baahan tahay. marka magacan waa mid aan marnaba inaad ka tagto kuu fiicnayn oo ducadaada waa inaad ku dartaa. xitaa haddii ay ku dhibayso biraxmatika astaqiis waa inaad yaa xayu yaa qayuum yaa xayu yaa qayuum tiraahdaa. waxaa jira xadiid xasan ah oo nabiga sallallahu calayhi wasallam uu yiri magaca alle ee weyn wuxuu ku jiraa 3 suuradood: suuratul baqara, aali cimraan iyo suuratul taaha. baqara waan wada garanaynaa oo waa aayatul kursi, allahu laa ilaaha illaa huwa alxayyul qayuum. aali cimraan sidoo kale waa bilowga suuradda oo iyada ayaaba ku bilaabato allahu laa ilaaha illaa huwa alxayyul qayuum. taahana wuxuu kaga jiraa wacanatil wujuuhu lilxayyil qayuum. marka magacan waa magac inaad ku celceliso oo ducooyinkaaga markasta aad raaciso muhiim ku ah si uu alle ducooyinkaaga kaaga aqbalo. marka uu qofka dhaho yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astaqiis, yaa xayu waa allaha xayiga ah nool aan dhimanaynin aan dhiman doonin, qayuum rabbiga u taagan ummadiisa baahidooda daboolo, wax kastoon u baahannahayna gacantiisa ay ku jiraan aan ka helno. biraxmatika astaqiis, ilaahayow naxariistaada, rabbiga xayiga ah qayuumka ahow naxariistaada ayaan ku dalbanayaa gargaarkaaga. ducada afraad waxaad dhahaysaa marka aad ducooyinka kale oo dhan aad soo akhriso intaad akhrin kartay oo dhan waxaad ku celcelinaysaa oo weliba in badan aad akhrinaysaa laa xawla walaa quwata illaa billaah. waa ducada afraad ee cashirkeena maanta. aad ayay muhiim u tahay xaalad kasta oo kugu adag ku celceli laa xawla walaa quwata illaa billaah. haddii aad xitaa awoodi karto inta ay ka soo dhowaanaysa salaada subax, ducadan aad ayay u fiican tahay in lagu celceliyo. macnaha ducada ayaa ah melihi awood iyo xeelad toona aan ku helo sida aan rabo, sharta iskaga celiyo, khayrka ku sameeyo, muraadkayga ku helo. waxaad cadaynaysaa inaad adiga awoodna lahayn xeeladna lahayn ilaa tii Ilaahay ma ahane. marka xadiis badan ayaa ku soo aroortay, kuma sii dheeraanayna ducadan, laakiin laa xawla walaa quwata illaa billaah inaad ku celcelisaan ayaan idiin dardaarmayaa. ducada ugu dambeyso qisooyin badan ayay leedahay laa xawla walaa quwata illaa billaah. dad badan oo ku celceliyay oo xanuunsanaa way caafimaadeen, kuwo badan oo muraadkoodii lahaana way heleen. laa xawla walaa quwata illaa billaah waa duco 99 cudur daawo u ah sida uu xadiis nabiga sallallahu calayhi wasallam ku sheegay. waxayna daaweysaa kurbo kasta, xanuun, wax walba oo qof lur ku hayo. laa xawla walaa quwata illaa billaah habeen iyo maalin qofkii ku celceliyo ma hungoobayo, Ilaahay wuxuu siin doonaa wax ka farxiyo waqti dhow.
waxa ugu dambayso ducadeena oo lambarka 5 ka ah waa salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. markaad ducooyinkaaga soo dhamaysato waa inaad ku gabagabaysaa nabiga ku salintiisa sallallahu alayhi wasallam. haddii aad awoodeyso waad ku wardin kartaa oo inta cabaar ayaad akhrin kartaa. haddii kalena waxaad samayn kartaa inaad hal mar akhrisato tiraahdo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. marka hal mar inaad tiraahdo xitaa Allahumma salli ala Muhammad ayaad dhihi kartaa. qaabo badan ayaa nabiga loogu saliyaa sallallahu alayhi wasallam. nabiga inaan ku salino waa amar dusheena saaran oo Ilaahay ayaa aayad quraan nagula hadlayo na yiri إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. sidoo kale waa xaq uu nagu leeyahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam nasoo gaarsiiyay nimcatul islaam wal iimaan. waa inaan anagana u mahad celinaa oo Ilaahay u weydiinaa nabadgelyo iyo naxariis. sidoo kale nabiga salligiisa waxaa lagu furfuraa hami kasta oo qofka ku taagan waxaana lagu dhaafaa dembi walba oo dul saaran. marka waa inaad ku celcelisaa oo ducooyinkaaga aad ku soo gabagabayso. waqti dheer inaad akhriso xitaa qasab ma ahan laakiin waa inaad ducooyinkaaga ku gabagabaysaa origa kugu dambeeya uu noqdo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ducadan salliga nabiga lagu dhameeyo ama lagu soo gabagabeeyo Ilaahay wuu aqbalaa. إلهي وحن كبرينا بأسماء الحسنى وصفات العلا إنه أنت نجحنا وصنع عافيمات عن عذر كدن بينين أنت نجد مطيء والد يا ولاله إنه إلهي قبريض وقد يقبر كم إذا براه جنات أنت نجم إذا مراد له إنه مراد كودون معسيهين ربي ومدك تكسر وقت دو مقال كأن أنت سيكوي هاي أنت عنكو كل مدون متك كن حجة وحيدن كجت جايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.